مستح سلور. بسم الله الحمد لله إلهي نو سورة قلية إن كلن كلمات يناقب صامة أيانو مهد علينا يا الحمد لله. مركب كواد وحن سلام يا أبوان أحمد إذا جاء يا دمان مسؤولين تا شرفت لنا لجوكتي دمان كساقب قلياشة. وحيدكم سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن sidoo kale ilaahay uga mahad celinayaa mar labaad in ay noo suura gashay in aan maanta tirada intaa la eg aynu ku soo dhaweyno abwaan idaaja sidaad ogtihiin cudurkan maanta afkii noo wada daboolay ee halista ilaahay naga qaadee masar waxaa saarnaa kulamada in la diidan yahay waxaa laga qaaday shalay oo bisha kow ahayd caawana ay noo suura gashay inaa abwaanka soo gabangaba tahay waqtigii uu qaahiro joogaya oo baxayo inay noo suura gashay inaan caawo la kulano marka taas mar labaad baa ilaahay uga mahad celinayaa annagana farxad ayay noo tahay inaan abwaanku iska laabanin ayadoonan la dhegaysanin oo fariintiisii caawo halka inooga soo jeedinin haddii aan ku sii socdo kelmadda caawo aan rabo halka inaan ka soo jeediyo horta marka koowaad waa mahad celin isku xilqaanka abwaanku isku saaray inuu soo aruuriyo suugaantii dhaqankii si guud taariikhda abwaanka qoraal ma ahan dhinaca kale aynu ku baranay sheekooyinka waliba ilaahay uu siiyey mowhibo dhinaca hadalka ah codkiisa quruxda badan marka uu soo jeedin jiray sheeko faneedka sheekooyinkii dhaqanka la xiriiray ay ahaayeen kuwa aynu xasuusano wadankii intaynu joognay aan aad u dhageysan jiray marka intaas waa mahad celin aad ayaa loo ogsoon yahay ummadaha meelaha ay ka jiraan ka nool yihiin in ay tahay afkooda in ay tahay taariikhdooda in ay tahay sooyaalkooda ay ka fakaraan oo ilaaliyaan caawo buug wuxuu ku saabsan yahay haldooradii ama halyeeyadii Soomaaliyeed wax badan wadanka u soo galay ahamiyadda ay leedahayna qofka ilmaha yar waliba marka uu soo korayo waa in looga sheekeeyaa taariikhdiisii qofkii garanaya jiritaankiisii hore oo garanaya halyeeyadiisii haldoorkiisii dadkiisa qiimaha badnaa waxaa ku dhalanaya inuu hami nolosha ka yeesho in uu yeesho dad uu ku daydo laakiin haddii meesha ay ka baxdo tusaale ahaan waxaa jira ilmo wadamada carabta ku dhashay masar oo kale haddaan ka soo qaado ilmaha Soomaaliga ee masar ku dhasha nasiib uma helayo wadankiisa taariikhdiisa inuu barto wuxuu dhiganayaa iskoolaadka masaarida manhajka uu dhiganayo waa masri ma jiro duruuf la xiriirta wadankii ma jiro cid isku soo howlaysa ilmaha ku dhalanaya qurbaha badbaadintooda maanta awood ma haysano aan jannalo lagu soo aadiyo ay ka baxayso dhaqankii ama taariikhdii sidoo kale jaaliyadii dhinacaas halkaas waan ka liidanaa ama lama mid nihin wadamada soo qaxay ama qurbaha nala jooga sida Hindida Bakistaanka sida jaaliyadahooda isku howlaan ama sida isku howlaan ciidaha markaasi dadkaas indhaha u ah in la badbaadiyo jiilka waxaad arkaysaa ilmo badan oo aragga Soomaali ka ah magaca Soomaali ka ah laakiin aan nasiib u helin intuu dhibka jiray in ay taariikhdooda wax ka bartaan taana aad iyo aad ayaan u xoojinayaa in xooga la saaro waxyaabaha nasiibka u helay intaan qaahiro joogay waxaa ka mid ahaa naadigeena ardayda ood garanaysaan waxaa jiri jiray waqtigii dugsiga sare dhiganayay inuu jiri jiray wax la yiraahdo isbuuci thaqaafi waxaa noo imaan jiray dad hal door ah oo na bari jiray taariikhda waxaa ka mid ah Dr. Saadiq Eenow oo wax badan halkaas inoogu sheegay taariikhdeena wali wax badan oo inan maqal aad nooga dhaadhiciyay marka taasna waan soo dhaweynayaa hal doorka imaada inaynu ka faa'iideysano هذا قدوميها عصب هنبليان ليه عاوة يجوه الرئيس سيدي وحن جعلها إنه عصب يهاي إن لقى إذا يو دلنيرتا ما أنت يصدق كجوكتا واحد بدن ما أي مقلين صدق كجرك أمانت إيو قوة كلابة ما أي مقلين واحد بدن وتاريخ لكوسابسن مركتها أدبا وأسر دويني يا إلا السماية إن أنا كفائدة سنة فرصة عاونا أبواني إذا جاء إنه تشوجو دقن كنا ونجعلنا هاي إن وان قيمينا لكن دقن كمل وحولي هاي أبوان dumarku ay dhibsadaan meelahaas waxa kamida matalan ereyga naag waxa jira dood maalin dhaweed aan ka qayb galay oo gabdho badan marka ani la iga reebay dhamaantood qabeen ereyga naagna wuxuu yahay oo la isku isticmaalin ana sidaan u arko qaamuskan uu qeexayo ereyguna naag la siman yahay ereyga nin wax ceeb aysan ku jirin
laakiin habka loo isticmaalay oo dhaqanka uu badanaa soo gudbiyey in ay taasi liiday oo heer ay gaareen gabadhii naag yahay lagu yidhaaha ama naag inay ka cararto marka waxyaabaha uu dhinaciisa na dhibaya waan jeclaan lahaa in saro dadka wacyigooda kor loo qaado fakarkooda arrintan waxaan tusaale ugu soo qaadan karaa maanta waxba lama inaad aragtaan arrin dhacday baad la wadaagaya xaqiiqa shir ayadoo la fadhiyo oo niman fadhiyaan oo shirka ku jiraan ayaa nimankii ka xanaaqay intuu istaagay wuxuu yiri war naga tagmaya sida naagta noola hadlaysaa ama sidii dumarku baad maqashaa mararka qaarkiis noola hadlaysaa ninkaasi kama caroonin eray anoo naag ah matalan la ii soo jeediyo kala kama caroonin wuxuu ka carooday ama waa la liiday ama erayga macna kala waday taas ayaa ka istaajisay xanaaqa uu xanaaqay iyo qofkaasoo qiimo isku sheegaya wuxuu sii liiday dumarkiibu sii liiday asagoo dambi ka xanaaqo ama wax ka xanaaqay oo gar dhigan lahaa ayuu dad kalena sii liiday waa arrin dhacda in abwaanada sida abwaan idaajaayoo kale wax badan waan maqlaynaa waa la soo gudbinayaa gabayadii bay ku jirtaa iyadoo macnihii ama maamaahdii bay ku jirtaa in waxyaabaha dhibaya gaar ahaan dumarka aniga u hadlaya in laga joojiyo waan ogsoontihiin dumarka meesha ay xurmada ku dareemaan oo qiimeyntii darajada ku tilmaamaan waa dhaqankii waa muraayadii dhaqanka ayada ilmihii soo saaraysa in dhinacaas la xoojiyo maanta gabdhaha 30 ka jira waxay ugu jecel yihiin ilmahooda inay uga dooraan aflaamta turkiga inay magacyada uga dooraan in dhinacaasna la badbaadiyo oo la dareensiiyo qiimihii uu leeyahay dhaqankeena iyo magacyadiisa dardaarankayga halkaasaan ku koobayaa marka mar abwaan soo dhawow waana jeclahay risaaladaas inaad ila fahantay dhammaantiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu nasteexo su-aasheedii ahayd ereyga naag la yidhaahdo waa opposite-ka ama ereyga yani u dhigma dhanka kale waa nin iyo naag dhadig iyo lab ereygu sidiisa ceeb ma aha ceeb baa laga dhigay waa laga dhigay waa sidai sheegaysay cali afyaro oo dhaliilahaya ragga hadda gabya wuxuu yidhi darka haatan joogaa sidii dumar u sheekay darka haatan joogaa sidii dumar u sheekay marka waa waxa Soomaalida waa ceeb ku taal weeye runtii yani meel wax naag isku caaya Soomaalida jirta wax kale ma jiraan iyagina waa qaayibeen oo dumarka laftoodu waxaan u tagay qofka la yiraahdo caasha Sheekh Cabdillah Saydka walaashiis markaasaan waxaan ka rabaa gabaya taariikhdii iyo waad soo gaadhay taariikh waad soo jirtay adoo yare waxay tiri hooyo anigu naag baan ahay ragga warayso iyada igu tiri waxaan idhi adigana kaa maarmi maayo iyagana waa waraysanaya reer Cabdillah Xasan baa buuxay tiri orbeelaha garan qof dumar maxaad ka waraysan hooyo marka waxa weeye waa wax bulshadii ku dhex faafay hadda lafteeda waxaa arkaysaa dad oranaya naag ha dhihin idaacadihii baa laga mamnuucay in ereyga naag la yidhaahdo oo waxaa leeyahay gabdhihii baa ka xanaaqaya waxay dhahayaan xuquuqul insaankii ayaa meel looga dhacay iyo xuquuqda dumarka waxaa meel looga dhacay marka naag ceeb laga dhigo runtii taas waa taas suurad baa suuratu nisaa